waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho. asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. saaxiibada qiimihii badan ku xiran abekatish, maanta mowduucina waxaan ku wada qaadan doonaa wiil walaalkeena oo ka haysato page facebook iyo profile hal cilad ah. ciladaasoo ah page has some issue. ciladaas ayaan isla xalin doonaa. ugu horreyn waxaad tagi doontaa facebookaaga. facebook marka sidaan kicisid kadib waxaa leedahay saddexda dhibcood qaybtaas aan ku calaameynayo. saddexdaas dhibcood ama profileka sawirka meesha saaran intaas in la mid ah ayaad ku dhufan doontaa. hadda saddexda dhibic ku dhufo. saddex dhibic markaa ku dhufatid kadib waxaa kusii dhufa doontaa pageka ama profilkiisa qaybtan aan ku calaameyn doono. qaybtaas ku dhufo. qaybtaas profilka markaas sidana u dooratid kadibni waxaa saareysaa waa ku dul dhufan doontaa. markaas sidan ugu dul dhufatid qaabkan ayuu kugu soo bixi doonaa. qaabka markuu kugu soo baxo waxaa sameyn doontaa saddexdaas dhibcood oo halka midigta kaaga muuqdo ku dhufo. kadibna waxaa leedahay view status aa leedahay ama maaragtay qaybta profile status ay ku qorantaa view status wuxuu kusoo qabto profile status ku dhufo. markaa ku dhufatid sida halkan kaaga muuqato profile has some issue. profilkan waxaa haysato cilada qaar ayaa haysato. ciladahana rabnaa marka inaan isla xalino. sida ku xalin karnaa waa kuwan qaybta hoose sida hadda kaaga muuqdo violation kaaga muuqdo in pagekan profilkan wax pageka la soo geliyey uu saameeyey. sida hadda inta hadda waxaan ka qaadan doonaa screenshotka markaan ka qaadano waxaan sameyn doonaa screenshot ka qaado. sidan ayaa screenshot ugu qaadan doontaa. waa ka qaadat screenshotkii guduhu kuu galay galerigaaga. dib ayaad ugu laaban doontaa. dib markaa ugu laabatid waxaad sameyn doontaa linkiga maaragtay oo profileka ayaa kuu biyin doontaa. linkiga wuxuu kaa caawinayaa maaragtay in profilekaaga uu cadeynayo in maaragtay copy link ah ka wadid qolada facebooka markaa codsigaaga mobilkaaga u dirsanaysid isla markii sida u aqbalaan. sida marka halkan markaa kusoo laabatid saddexda dhibcood ayaa mar labaad ku noqon doontaa. saddexda dhibcood markii mar labaad ku noqotid ama qaybta sawirka profilekaaga muuqato ku dhufo. halkan ayuu ku keeni doonaa. markuu saddexda dhibcood ku tago bismillah waxaa leedahay helping and support qaybta ay ku qoran tahay oo hadda halkaas qalinka gaduudka kuga calaameeyey. markaas sidan ugu dhufatid kadib waxaa kusii dhufan doontaa report a problem oo qaybtaas horta maxay tahay maxay qabataa waa xalkiyo idil meesha ka raadin lahayd. waxaa ku jiro facebooka feejirisyada dhan la isticmaalo continue dheh report a problem. kadibni sidan ayuu wareegi doonaa. in yar markuusaan u wareego including report a problem ayaa ku dhufan doontaa. qaybtaas ku dhufo. qaybta markaa ku dhufatid wuxuu ku gei doonaa wixii maarad feature dhan oo facebook ciladaha ka qabsan doonto ku jiraan. kadib waxaa ku xulan doontaa qaybta profile ay ku qorantahay. qaybtaas ku xulo. qaybta markaa sidan ugu xulatid sawirkan iyo wuxuu ku keenayaa meel aad description issue ama meel aad ku qoranaysid cabashadaada. kadib sawirkaas ayaa iska tirtiri doontaa. markaa sidan u tirtirtid kadib waxaa leedahay qaybta oo ku qorantahay upload your photo. kusoo upload garay footada ama sawirka markaas halkaas kaaga muuqato. qaybtaas description ka geli. qaybta hoosena waxaa soo gelin doontaa uploading your photo. footada markaas adiga maaragtay is leedahay waa keensatay. qaybtaas footada soo geli. kadibna waxaa leedahay hoos u bax footadii ayaa soo gelisay. kadib inta ayaa waxaa sameyn doonaa waxaan ku koobiyin doonaa abiilkii markaas aan qornay. abiilka markaa qoratid sana u koobiyeysid kadibna hoos ayaa u bixi doontaa. hoos markaa u baxdid linki ama my linki aad dhigi doontaa. my linki markaa dhaadid akoonkaas dib u celi. kadibna halkan markaa keentid waxaa sameyn doontaa qaabkan u samee. qaabkaas markaa u sameysid uu ku dhamaystirmi doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. wuxuu noqon doonaa mid diyaarsan. kadibna waxaa leedahay
codsigeeni inoo dir oo codsigeeni aqbal send ayaa leedahay. qaybtan kaasarka aan kugu calaameeyey send ayaa leedahay. send markaa dhaadid qaybtan ayuu ku keeni doonaa, in yar ayuu wareegi doonaa, dib ayuu u laaban doonaa. bal marka waxaan isla bilaabi doonaa qaybteenii labaad oo ah sida pageka ama loo xalin lahaa. hadda waxaan sameynay sida profileka aan u xalsan lahayn. marka qaybtaas oo maaragtay kaasarka yar ama switchka ku dhufan doontaa, kadibna pageka ayuu kusoo qaban doonaa. pageka ayaa kusii dul dhufan doontaa. pagekaas ku macalinayo Deeq Cabdalla ku dhufo. marka sidan ugu dhufatid switchna ayuu dhahayaa to the profile to the page. marka pageki markuu sidan kuugu soo kaco waxaad sameyn doontaa pagekaagii ayaa joogtaa, kadibna sida halkan 3 dhibcood oo halkaas kaaga muuqato ayaa ku dhufan doontaa. 3 dhibcood oo profileka camal ah ayaa ku dhufan doontaa. marka sidan ugu dhufatid kadibna waxaa imaan doontaa qaybta ay ku qoran tahay settings and privacy. markaad tegtid qaybtan ku dhufo. marka sidan ugu dul dhufatid waxaad tegi doontaa qaybta hoose ee ku qoran tahay settings. qaybta settingiga aan ku calaameyn doono qaybtaas ku dhufo. sida markaa qaybtan ugu dhufatid halkan ayuu ku keeni doonaa. halkan markuu ku keeno waxaa ku dhufan doontaa page setting, qaybta sare ee kaaga muuqato page settingaas ayaad ku dhufan doontaa. wax walba oo ku calaameeyay sabida amari lahayd waxa dhan. marka page setting markaa ku dhufatid hoos ayaa u aadi doontaa. hoos markaa aadid kadibna qaybtan ay ku qoran tahay page status, qaybtaas ayaa ku dhufan doontaa. page statuska markaa ku dhufatid wuxuu ku tusin doonaa ciladaha oo ku haysto pagekaaga iyo pagekaaga wuxuu qabo. sidoo kale pagekaaga haddii cilad haysto waxyaalahaas inuu ku sheegi doonaa. marka pagekan ciladan haysato, ciladan waxawaaye waa page has some issue. pagekan cilad yar haysato. qaybtan waxay ka imaaday ciladan profilkeeda hadda aan xalinayn. mar walba is-saameeya. marka waxaa is leedahay pagekaaga iyo waxaaga is-saameyn karaan ma wax ma imaan kara, screenshot ka qaado. screenshotkaas markaa ka qaadatid dib ayaad ugu laaban doontaa, kasii laabo. marka qaybtan page admin iyo waxyaalahan kale sida loo isticmaalo taqaanaa. marka sidana sameyn doontaa, kadibna dib ugu laabo, kasii laaban doontaa, kasii laabo. marka sidan ugu laabatid qaybtan imaa report a problem, continue report a problem ku dhufo. marka continue report a problem ku dhufatid including report a problem, qaybtaas kale kasii xulan doontaa. waxaan ku sheegi ma jirto waxyar linkiya iloobi, linkiya soo koobiyan doonaa. 3 dhibatag linkigana koobiyeysan doonaa. sorry waxaan iloobi karaa biniaadan ahay, diba u tagi doonaa meesha hadda aan ku tilmaamay continue report a problem, kadibna kusii dhufo including report a problem haddii kusoo qabato si isla boobsiino. kadibna sawirkaas ka tirtir, sawirka pageka aad ka qaadatay screenka soo geli. kadibna qaybtan sare waxaa gelin doontaa qoraalkii meeshii ahaa my account page ayaa u bedeli doontaa. marka qoraalkan waa isla isticmaali kartaa. sidoo kale farsamo kale oo qoraal kale adiga aad diyaarsanaysin waa u isticmaali kartaa haddii uu maaragtay waqtiga oo ku kulaalaayo. marka linkiga qaybtan waa soo gelin doonaa. linkiga marka hadda soo gelisini horle ka dir waa marka linkiga soo gelinaysaa halkan ka baar waa kana kan u dambeeyo waaye. linkigiisana u soo geliyay kadibna waxaad sameyn doonaa qaybta ruuba meesha my personal ay ku qoran tahay tirtir. my personal markaa tirtirtid waxaa ku qori doontaa my Facebook account profile account page meesha ka dhigi doontaa. account page markaa ka dhigtid has some issue please problem solve it, xaalaas ku qori doontaa. marka sidan samee. marka sidan aad sameysid arkaya wixii xal ah insha Allah waqti dhow ayay kaaga soo jawaabi doonaan. adiga ku xirantahay fariintaada sida u dirsatid, nidaamka u martid, wadada u maraysid iyo fariimahaaga sida loogu jawaabi karo. fariin dheer waxaa ka fiican fariin gaaban. marka hadda waa dirsani waxaan sugi doonaa jawaab. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.